laba wiil oo walaalo ah haddana mataana ah oo ku nool magaalada Hargeysa ayaa inta badan ay adag tahay in ay kala gartaan dadku marka ay arkaan labadooda waxa ayna labada wiil RTN la wadaageen in uu mar uu aabahood isku qalday warbixintaani Xamse Dabaare ayaa waxa uu nooga soo diray magaalada Hargeysa waxaan laba mataana isku mar suuq aada isku marna ka soo laabta isku dhar xidha isku dooqa isku mar wax cuna عندنا واحد سوقنا هالقف مننا ولبا ويلو walaala ah oo mataana ah oo ay adag tahay inay dadku wajiyadooda kala gartaan marka ay arkaan magacaygu Xasan Xasan Axmed Cabdulle leeyahay sidoo kale mataankayna waxa leeyahay Xuseen Axmed Cabdulle aan ku dhalan dadka qaar waan istaajin waxayna anadina seegtay marka dadka qaarna waxa jira dad intii ku arkaan dib soo laaban iska xoogaas ka dab raacayo saakay indhaha kula raacayo marka dib iska noqonaya dadka qaarna magaalka ka dhuntanayo xasaas dhaayaan magacaygu Xuseen Axmed Cabdulle waxa ku dhashay Addis Ababa ku dhashay Hargeysana waxa ku bartay ninkana mataana habeenada kamid ah waxa dhacday wiil saaxiibkayga ومان هرس له كلاني لمبركو iga qortay kadib markuu iga qortay baa habeenada kamida isoo waasi digday kadib wuxuu saaxib hawl bajtay adoo ar macna digdig iyo kaali kadib walaalkii waxa uu sheegin gabadh kale waxba ka qarsantin waxa uu sheegin yadiina hooyadayna dabadii fadhiday kadib orod baan ku dhaafay islaantii markii dambe markaan soo noqday baleeyooniyo maxaa dhacay oo mataankaagina waxba uma sheegin gabadhi kale waxba uma sheegin maxaa dhacay ileen waxay cadeynaysaa halkaas in mar meel kasto aan aadano inaan labadaydu wada aadno hal asxaab aan wada leenahay hal saaxiib aan wada leenahay markaan suuqa aadano markii suuqooda aadna hal mar baan ku badooda yaar hal mar baan gurigooda joognaa midba keligii gaar ma dhaqmo wax kasta isku mid baan iska keenay kasoo waxyaabaha ay kala kulmaan bulshada ay ku dhaxnool yihiin marka laga yimaado labadii wiil ee walaalaha ama mataanaha waxa xusud mudan in waqti kamid ah waqtiyada uu aabahood isku khalday aaba maqan oo marka bariya dhaxdaas oo soo degay beeheed rabadaantii beeheed rabadaantii maantii hore ahayd markii taraawiix laga baxay baa mid baa masaajid ku haray marka aniga ayaa masaajid ku haray Xasan masaajid socodaan studio isagoo Xasan gacanta ku hayay aaway Xuseeniyo isagoo gacanta ku hayay Xasan buu yiri wariya Xasan oo dee uu qayli wariya Xasan miisa saacad ma ku yiri aabade aniga wad gacanta haysaa ninkii kala masaajid ku jira Xasan Xuseen Xamse Dabaare hargalka RTN TV Hargeysa